السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسoo dhawaada barnaamijkeeni cunto kariska ee Lifeline Soomaaliya. Maanta halkan waxaanu idinku soo bandhigi doonaa sida loo sameeyo pizza hilibka la shiiday. Marka sameyska waxaanu ka bilaabanaa sameyska sida loo xashiyo burka iyo waxa aad baantay. Waxaad u baahantahay hal malqacad oo weyn, tablespoon oo yeast, 4 koob oo bur ama daqiiqda cad, milix qiyaasta adigu aad rabtid, marka rubac koob saliida bibiyaha iyo biyo diiran. marka yeastkii intaad biyo ku qastid ayaad burkii aad ku daadanaysaa, biyana waad ku daraysaa, marka saad xashaysaa, marka cabaar aad xashidna waxaad ku daraysaa marka saliidii bibiyaha ilaa 2 malqacadood kasaad wadayso waad xashaysaa, burkana waad ku daraysaa, waad xashaysaa. marka uu burku isqabsadona waxaad ku daraysaa saliid yar oo kale si aad u xashtid. marka uu burku wada dhex galo aad aragtid inuu diyaar yahay waad daboolaysaa. marka xagga hilibka haddaan soo noqono, hilibka waxaad u baahan tahay nus kiilo hilibka la shiiday, 2 barbarooni oo cagaaran ama midabkaad heli kartid, ama jaalle ha noqdo ama mid casaan ha noqdo. marka shayga muhiimka oo aad iyo aad looga baahan yahay waxaa weeye waa cheese-ka, jubnada mozzarella ama cheddar kaad rabtid. halkan waxaanu isticmaalaynaa 250 gram oo cheddar cheese oo marka si yar yar loo googooyo, 2 basal oo waaweyn iyo 3 malqacadood oo herbs ah, iyo herbska waa xawaash, iyo maxaan ku idhahdaa iyo tomato paste. marka aan u soo noqono meeshii cheese-kana waxaad ku gogoynaysaa maxaan ku idhahdaa grater. barbaroonigana sida caadiga ayaad ku goynaysaa adigoo aad jeceshay, haddaad rabtid mid yaryar ama haddaad rabtid mid dhaadheer, sida adigu aad rabtid baad u samayn karaysaa. laakiin halkan si waxaa loo googooyey oo dhaadheer ah, cheese-kiina waa kaa sida loo googooyey. marka waxaa kale oo aad u baahan tahay waxaa weeye waa tomato paste. marka tomato paste-ka waxaa weeye maxaa la yidhahdaa waxaa lagu sameynayaa hilibka ayaa lagu sameynayaa. hilibkana sida loo sameynayo waa sida caadiga ee baastada suugadeeda loo sameeyo, laakiin aan biyo aan lahayn. marka halkan waxaa noo soo diyaar gareynaya oo noo sameynaya waa wiilal the incredible Somali boys iyo kuwa caawinaya hooyadood ayaa cuntadan maanta noo soo diyaar gareeyay, iyagoo halka doonaya inay ku dhiirigeliyaan dhalinyarada kale inay qayb ka qaataan sidii ay shaqada guriga ay u caawin lahaayeen hooyadood ama aabahood markay cunto kariska iyo waxaa markay timaado. tan waxay ka mid tahay farsamooyinkii aanu idin ballan qaadnay si aanu idinku soo diyaar garayno si ay dhalinyarada ama hooyooyinka ama nimankaba ay ku shaqo tegi karaan. marka tan waa farsamad, cunto kariska waa farsamad caana oo la yaqaano caalami ah. qofkii uu farsamooyinka kala duwan hadduu yaqaan, maqaayad buu furan karayaa ama maqaayad buu ka shaqayn karayaa, isagoo cunto kariskii u yaqiin aanu ku dari doono cunto karis kala duwan si uu qofkii uu u gaaro heer uu noqdo qof aan maxaan ku idhahdaa maqaayadaba dadkaba
soo jiidanaya siduu cuntada u karinayo. marka maanta cuntooyinka aanu haddaan nahay Soomaali cuntooyinka aan cunayno waa cunto nooca maxay la dadkeenu dunidii ayay maanta meel walba ay degan yihiin. marka cunto nooc walba dadkii way barteen. marka farsamadooyinkii cuntooyinka kala duwanaa ayaan doonayaa dadka inaanu barno si ay iyaguna ay guryahooda ku karsadaan ama maqaayado ay ku furtaan. marka suugadii wataan sheegnay waxa loo karinayaa sida baastada caadiga loo kariyo. burkina waa ka markii uu fuuray oo kala baxay waata meeshii laga soo saaray waa waxaan ku radaa waa la kala bixiyay treygii baa la saaray. tomato sauce ayaa markaa burka la marinaya. marka treygii la saarayna waa ka hilibkii ayaa markaa isagoo diyaara ayaa burka korkiisa laga saaraya. waata sugada wataan idin sheegay waa suuga aan biyo saas ba aan lahayn. marka kadibna waxa aad korka ka saaraysaa barbaroonigii oo halka ku yaal oo diyaar ah. meel walba ayaad ka saaraysaa ilaa uu meel walba u gaaro. marka kadib waxaa markaa noo haray oo keliya waxa weeye cheese-kii in pizzadii korka lagaga daadiyo. cheese-ka waa shay muhiim ah maxaa yeelay waxa dhadhankaba u yeelayo pizzaha waxa weeye waa jubnada iyo si uu wax walba uu u qabsado rootigii iyo wixii saarnaa oo dhanba ay isku dhalaalaan. marka ay isqabsaan ay noqdaan wax isku bislaaday. marka waa ka treygii baa la qaaday waxaa la gelinaya foornada isagoo markii hore u sii shiday adigoo sii saaray. numberka halkan uu isticmaalayna waa number 5 laakiin foornadaada waxa aad leeyahay number kale waxaad saaraysaa numberka la dhigma number 5ka. waa ka pizzadina waa diyaara. marka muddada uu ku bislaanayo waa 20 daqiiqadood ilaa 30 daqiiqadood oo keliya. marka sida runta pizzada waa cuntada ay ciyaalku aad iyo aad u jecel yihiin. marka qaarkood ku qasba waalidiintooda inay tagaan ay u soo iibiyaan maqaayadaha ugu soo iibiya. marka halkan waxa aanu u howl yareen reerkii inay shaqada pizzada ay wada qabtaan. waa shaqo aad iyo aad u howl yar uu qof keliya u samaysan karayo laakiin in la isku dhiirigeliyo wiilasha ama gabdhahaba in iyaga ku dhooda la baro ay cuntada maxaan ku qayb weyn ay ka qaadan kareen. maxaa cunto karisku waa farsamo aad iyo aad loo baahan yahay inuu qofkii uu wax ka yaqaan. maxaa yeelay berito waxaa dhici karaysa qofkii inuu maqaayad furto isagoo marka khibrad leh maqaayadiisa marka heer aad iyo aad u sareysa ayuu gaarsiin karaya. waa sida iyo maca salaama nala soo xiriira sida caadiga waxyaalada arabtaan in maxaan ku aanu idin soo gudbino. من فضلكم نلا سو حريرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.